بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وأحلام أحمد ديري. هل كان وحان إذن كل وذاقي دونا عشركي ميلابات كساب سنة وحكبروا هالجمياشي حرمة دونك الصوماليات ما أنت وحين كسو قادم دونا هالجماجي وينا سيد محمد عبد الله حسن. سيد محمد عبد الله حسن وحقو كل شيء دونك لو يقانو عيد مدك oo agagaarka degmada Buuhoodle baniga la yiraahdo Sacmadeeqo oo magaalada Buuhoodle 7 mayl u jirta kana xigta dhinaca waqooyi. Sayidka wuxuu dhashay la baxay Gobyasane waxa la sheegay ama la soo wariyay inuu ahaa barwaaqo ah oo dad iyo dunyo wixii dhashay ay hanqaad noqdeen. wuxuu dhashay taariikhdu markay ahayd 1863 darawiish iyo dadkii waqtiga noolaa badankeedu waxay sheegeen Sayid Maxamed 3 meelood inuu kala mid ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam magaca da'da iyo jihaadka hase ahaatee sheekadaasi inoo cadeyn mayso uu dhashay wuxuu ku koray mugaal dadkooduna wuxuu ahaa xoololey daaqsata ah guud ahaan xoolaha markaas la haystay waxa ugu badnaa geel iyo fardo. sayidka caruurnimadiisa wuxuu ahaa xoolo raac waxaa looga bilaabay quraanka 7 jir wuxuuna ku dhameeyay 10 jir hase yeeshee markii dambe wuxuu ka mid noqday xir taasina waxay dhalisay in lagu magacaabo aw Maxamed Sheekh Cabdulle magacaasi wuxuu siiyay ama kordhiyay xurmo iyo xushmad gaar ah uu ka helay diinta xageeda iyo dhammaan dadkii markaasi ka aglabaa. intaa wixii ka dambeeyay sayidka wuxuu u kacay Makka iyo Madiina waxayna isu raaceen 13 wadaad oo ay isku xir ahaayeen. sayidka magaalada Makka waxay isku arkeen wadaad Suudaani ah oo Saalix lagu magacaabi jiray. sayidku wuxuu ahaa Saalixiyada oo ah dariiqa tirsan Suufiyada. intuu ku sugnaa Makka iyo dhulka barakaysan wuxuu soo bartay sayidka cilmi aad u ballaaran. 12 Abriil 1899 qunsulkii sare ee Ingiriiska gaashaanle sare Hayes Dawson waxaa soo gaadhay warar sheegaya in Sayid Maxamed madax ka yahay ciidamo hubaysan oo tiradoodu gaadhaysa 300 uuna tabaabusho ugu jiro duulimaad ba'an Ingiriiska. kadib sayidka wuxuu ka soo laabtay xajkii sanadkii markuu ahaa 1895 intaa kadib wuxuu ka degay miyiga Berbera wuxuuna faafin jiray diinta Islaamka isagoo ummadda uga digi jiray inay isdhacaan iskuna duulaan. wuxuu heshiis ka dhex beeri jiray beelaha wada degan haddii ay is aqoonsadaan. sidaa awgeed Ingiriiska wuxuu sayidka u arkayay ugu horeynba inuu ahaa nin laga dambeeyo oo awood u leh inuu xaslooni ka dhex dhaliyo qabaa'ilka Soomaaliyeed. ku-xigeenkii qunsulkii Ingiriiska Berbera u fadhiyay wuxuu xidhiidh joogto ah la lahaa sayidka haddii qasdaco oo miyiga ka dhaca waa la socodsiin jiray waxaana laga codsan jiray inuu wax ka qabto. Agost 1899 waxaa ilaaladii Ingiriiska soo sheegtay in Sayid Maxamed yimid Burco isaga oo wata ciidamo 5,000 ah oo 1,500 ka mid ay yihiin fardooley 300 ka mid ahna yihiin banaadiiq hubaysan. Burco waxa ahayd meel xagga tabcooyinka dagaal aad ugu haboon waayo biyo joogto bay lahayd xilliyada abaaraha ah. Sayid Maxamed Cabdulle Xasan waqtigaa wuxuu si badheedh ah uga dhawaaqay inuu dagaalo muqadas oo gurmadoon ah Ingiriiska kula jiro. askartiisana wuxuu u baxshay darawiish wuxuu u faray qabaa'ilka Soomaaliyeed oo dhan inay la dagaalamaan jihaadka la diga ah gaaladana ay la galaan. intaana waxay ahayd qaybtii koowaad ee taariikh halgamaa Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. intaan ku kulmi doono toddobaadka xiga nabadgelyo.